Guddida Komishinka Qaranka Somaliland ayaa maanta diiwaangelin tijaabo ka fuliyay magaalada Oodweyne ee xarunta gobolka Daadmareed waxaana goobjoog ka ahaa saddexda xisbi qaran ee Somaliland. Ugu horeynba waxaa faahfaahin ka bixiyay Cabdikariin Dalmar oo ku hadlayay afka Komishinka Qaranka Somaliland. Waxa Komishinka Doorashooyinka Qaranku ku sugan yahay magaalada Oodweyne halkaas oo aan ku soo bandhigayno qorshaha diiwaangelinta dalka ka dhici doonta dhawaan hordhaceedii oo ka dhacaysa maanta magaalada tan oo nasiib u heshay in lagu qabto iyada oo ah magaalada Oodweyne iyo magaalada Balligubadle oo isla imika ka dhacayso iyadana diiwaangelintu waxay ka kooban tahay laba qaybood qayb ah diiwaangelin cusub oo qofkii da'da gaadhay ama aan hore isu diiwaangelin ama inta uu ka noqday laba jeer isdiiwaangeliyay tii hore ka baabaaday lagu siinayo fursad uu isku diiwaangeliyo. sidoo kale iyaguna waxaa ka hadlay xubno sarsar oo ka socday saddexda xisbi qaran ee Somaliland. runtii si fiican oo habsami oo qurux badan ayay u socotaa waxaanay tusaale u tahay in shaqadii doorashadu ay bilaabantay dadku ay doorasho u diyaar garoobaan dadku ay ogaadaan in diiwaangelintii bilaabmayso diiwaangelintii ay u diyaar garoobaan si cid kasta oo aan isdiiwaangelin xaqa ay leedahay in isdiiwaangeliso codkeeda bixiso ay ugu diyaar garowdo hadii Ilaahay raahdo insha Allah. runtii waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa xubnaha komishanka ee halkan yimi xubnaha kale iyaguna xisbiyada qaranka ka socday. maanta sida la sheegay waa tijaabo diiwaangelinta codbixiyayaasha oo tilmaan u ah in diiwaangelintii ay bilaabmayso doorashada loo socdo. tijaabada diiwaangelintii doorashada oo runtii laga qabtay degmada Oodweyne waxaan aad ugu mahadnaqayaa guddiga doorashooyinka qaranka iyo shaqaalahooda oo runtii dadaal badan muujiyay. waxa sidoo kale aan u mahadnaqayaa barasaabka gobolka iyo dhammaan howlwadeenada shaqadan hawsha gacanta ku haya. waxa dhankooda halka ka mahad celiyay gudoomiyaha gobolka Daadmareed taliyaha qaybta iyo xubno kamid ah cuqaasha gobolka Daadmareed waxaana hadaladoodii kamid ahaa hawsha ay keeneen ay soo bandhigeen oo aad iyo aad u wacan ayaan ugu hambalyeynaa. waan soo dhaweynaynaa komishinka qaranka marka horeysa halkan waxaan maanta ku soo dhaweynaynaa amba aan nala joogay maalmahan oo soo dhaweynay komishinkii qaranka ee Somaliland hawshoodiina waa wadaan way si fiican bayna u socotaa gobolkana waxaan ku faraxsanahay degmada Oodweyne inay nasiib u heshay tii lagu tijaabinayay inay noqoto sida Balligubadle oo kale sidana noo sheegay taana aad baan ugu faraxsanahay inaan noqono dadkii nasiibka helay. Leila Arif Maxamed Hon Cable TV magaalada Oodweyne. magacaygu waa Suldaan magacaygu waa Seeraar isku si ayaan u hadalaa isku sina waanu libisanaa isku midna waanu nahay anigu waxaan isticmaalaa Samtel isagu ma uu isticmaalo Samtel. anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma sameyn karayo. warmaahay run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah caadi ma aha maxad mar hore igu sheegi weyday fikir hadal oo hadalin maalinta oo dhan ku hadal 2500 oo shilinka Somaliland ama bishii oo dhan ku hadal $5 oo kaliya. Samtel shirkadda dadweynaha